faculty-ga department-ga waxaa ku xigsanaayo course courses meeshan siida small ka dhig anaa course.php halkan waxaan dhiganayna sidoo kale courses lecturers with PHP say that. lecturers kan waa drop down maxaa u baahan oo ku jiri kara lecturer-ka u baahan drop down in laga dhigo waxaan rabaa mar macalinkina si abuurno marna maadaa u assign gareyno marka laba linkiya hoos imaanaysa macalink markaa ku dhufato yani macalin cusub ma abuuraysa ma listiga macalimiinta ma rabtaa mise maadaa u assign gareynaysa saasaan ka rabaa sidaasna imaadan saa darteed marka lecturerka meeshaan kabas ka dheh meeshay ku qoran tahay buttonka drop downka waxaan ka dhiganaynaa lecturers mida marka waxaan leenahay lecturers aan ka dhiganaynaa drop downka hoos waa kan marka as lecturer oo macalin cusub lagu daraa view listiga macalimiinta listigooda in la arko iyo waxaan leenahay assign course maadu assign garee anaa drop down intaasaan garabna marka yani macalin cusub in la abuuro formka ay soo baxay laga register gareyna markaan ku dhufto view list waxaan rabaa in way kaanta listiga iyo haddii aan rabo inaan maado cusub u dhiibo qofkan inaan isticmaalo kan marka waxaan leenahay add lecturer.php waa fileka nooga heli doono kan waxaan leenahay view list.php kan waxaan leenahay assign.php koorsooyinka hataa waxaan u fiicnaa qaabkaas ka samaysano waxaan ku laabanaynaa koorsooyinka naftirkooda course marka la abuuro course cusub in lagu daro iyo listigeeda in la helo ayadaa taa waxay u baahan tahay laba link ay qaadanaya courska facultyga in faculty cusub lagu daro listigooda in la arko department cusub in la register gareeyo listigeeda la arko anaa uga jeedaa dhammaantooda drop down ay u baahan yihiin marka waxaa fiicnaan lahayd marka kood banaa isticmaalo keliya drop down waxa weyn maahan oo ku laabanaynaa kaas kabas ka dheh linkidan caadiga hadda abuurnay drop downkaan lahayd dhammaantood iska jar intaan waxay isku yihiin drop down kanaa ku geynaynaa banaankaan geynaynaa meesha lecturerka waxaan ku bedelinaynaa faculty waana si kale aan waxaan inaan u sameyno faculties meesha waxaan leenahay add faculty inta waxay noqonaysaa add faculty meel faculty looga daro iyo view list kan looma baana marka kuwaan noo bedel marka file nameka waxaan leenahay add underscore faculty .php waa meesha looga daro waxaan leenahay view underscore faculty waa file nameka uu aadi doono hadda saas waxaa nooga dhisan facultygii hadaan refresh dhahno laba linkoo drop down noo samaysa inta waxaa ii soo galaayo formkii ma diyaarsana haddii view aan ku dhafta inta waxaa ii soo galaayo listiga ii soo galaayo lecturerka saas oo kale then mar labaad kobiyeyso
يعني button كان أو drop down وقبل لابنا ماشان button كان إلى ديفك تام بستان رهنا ماشان كده جينا department departments I've never heard. Yeah, me to make really like. يعني معكو جبتو at department عصبة كان قدرينو view list فعليش مركا أي تجي دونا أو PHP أو code مقرن هاي و at department كانوا نغنا مركا view faculty view department ده Go guided. I'm out enough time. waxaa ku xiga kan waxaa ku xigsanaa hosted way ku biisan besta leh courses ama subject leh ama courses leh ايش كورسooyinka ay kasoo muuqanayeen add course iyo view list file name kasoo aanay add course.php you view course but PHP the only thing then spotting just and waxaan ku sii darsanaynaa linki kale course Control Z that. qaybta administration kii joognaa linkida meeshaan ku soo qornay student yes meesha laga abuuri lahaa arday drop down student ay furan tahay isagana wuxuu ku xirmi doonaa laba linki add student fileka PHP wuxuu noqon doonaa add_student sidoo kale halkan waxaa leenahay view student marka kan wuxuu isticmaalay javascriptiga dhammaantooda waana wada furi kara drop down haddii la rabo expandina wuxuu samayn karaa scroll wayaalna dhow haddii qofku rabana wuu is dhexgelin karaa linkeeda marka featureska meesha ku qoran intaas ay ahaayeen qaybta administrationka ah oo la rabo in la hirgeliyo course aside hitting lectureka marka la abuuro people all the thing to get over waxaa ka hoostiis taalla qayb loo yaqaana assign course meesha ku taashay But now I'm just like EDT. All the pistol. marka waxaan fahmnay linkigan meesha ku diyaarsan yahay fataarad mid kalena ku darsan karto oo aan badsan karno waxay ku jiraan bloggan oo loo yaqaano waxaa la dhif sidebar inta kasoo bilaabanaya classkooda waxaa loo yaqaana sidebar linkigan dhifka intuu kasoo furan yahay oo taga ilaa intuu ka xiran yahay qaybta waxaa ku qoran mainka waxay tahay waa qaybta contentiska qaybta caddaanka ah adaarta background waa ka bedeli kartaa yani CSS oo kusii dari karna qaybta marka ayadana waxay tahay qayb oo aan rabno inaan kusoo firno marka diffkan hadda meeshan context ku qoran waa iska saareen waa qoraalka meesha kasoo muuqdo inta marka waxaa looga talagalay waxaa laga dhigaa dashboard laga dhigaa meesha waxaan soo saaraynaa boxyo bootstrap aan soo qaadanaynaa goorme shaqooyinka marka la dhammaystiro informationkooda halkaan soo galay waxaa soo gali doonto number of facultieska jaamacadda ay leedahay meesha kasoo muuqan doonaan departmentyada inta maad regis garaysan inta arday yani inta macallin regis garaysan kursooyinka macallimiin aan dhigin inta waxaa laga rabaa marka dashboard boxyaa laga rabo oo information qofka markuu soo booqdo uu arki karo inta laga rabaa marka
dashboard waxaan isticmaalaa kaarar la isticmaalaa wax sida kaararka oo kale u samaysan waa aragteen sistamada oo badan responsive waxay leeyihiin kaaris ay leeyihiin kaariska waxay ku dhex jiraan bootstrapka w3 school ay dhexayaadan waa soo qaadanaynaa intaasoo dhigayna kadibna php code-keedan ku darsanaynaa waa ka soconaynaa kan marka waxaan rabaa inaan abuuro pagekan facultyga waxaan iska socono pagekan facultyga inaan abuuro pagekan facultyga marka la abuuro waxaan ka rabnaa sidebarkan sidiisa inuu ahaado sidebarkan hadda u jeedno inuu sidiisa noo ahaado kadib inta keliya isbedeshaan rabnaa then si sidebar loo aan u abuurno waxaan tegaynaa fileka hadda aan ku dhex jirno kana koobiyeysanaysa guud ahaan programka ku jira kadib waxaan leenahay control n waxaan leenahay best filekaan safe garayn marka waxaan leenahay add underscore facal waa linkiga aan kusoo qoray pagekana waa add faculty add faculty haddaan kala kusayno waxaan rabna meeshani geeyo hadda home aan joognaa gaanka ku dhufano exactly saasaan waxa joogaa laakiin rabtii oo faculty registrationkii aa meesha ka maqan inta marka waa in faculty aan ka abuurnaa si loo abuuro faculty waxaan u baahanahay css aan u baahanahay intaan ku qorayna marka facultygan contentiskiisa waxay soo galaysaa galaaskan loo yaqaano may dhexdiisaan ku diyaarinaynaa wax kastoo qaybta cadaanka ay ka soo baxaan waa inay ku dhex jiraan taagan gudihiisa sababtoo kaasa wuxuu yahay qaybta bokiska cadaanka marka intaa waxaan ku diyaarsanaynaa koodkii aan ugu talagalnay marka ugu horeysa waxaan ka furayna meeshan php intaan php aan furin waxaan tegaynaa bilowga meesha css-ta waxaan rabaa inaan dhisno form marka formkaasi style aan kusoo samaysanay form style aan ku samaynaynaa waxaan leenahay dot form style aan kusoo darsanaynaa formkeena waxaan leenahay waxaan u abuuraynaa waxaan lahay padding padding oo 20 pixel aan u samaysanaynaa form waxaan kusoo qoraynaa css-ta meesha style tag uu ka xiran yahay korkiisa kusoo daraysaa galaas cusub abuuraynaa dot form ah hadhowdii formka ku attach garaynaynaa kasoo tag waxaan abuurinaynaa text boxsida aan isticmaali doono stylekooda saanaa gudidkeeda waxaan leenahay boqolkiiba boqol text boxkaas paddingkeeda 7 pixel ka dhigo border waxaan ka dhigaynaa 1 pixel oo colorkeedu uu yahay black 00 waxaan u samaynaynaa margin oo 10 pixel ana margin inay u dhaxayso 10 pixel text boxsida u dhaxeeyo haddii aan rabno waxaan ku darsan karnaa radius aan ku darsanaynaa radiuskiisa waxaan ka dhigaynaa 7 marka intaasaan uga filan waxaa noo dhiman hoos u soo deg button loo yaqaano submit buttonka save oo faculty marka la abuuro aan ku save garaynayno widthkiisa boqolkiiba boqol margin 10 pixel saaran paddingkiisa 8 pixel ka dhig haddaan u dhibno border waxaan ku samayn karnaa colorkiisa waxaan ka dhigi karnaa green qoraalkiisa waxaan ka dhigaynaa white colorka meesha ku jira white ka dhig
textiga waxaan leenahay centerka textiga save faculty waxaan geeninaa centerkaan geeninaa waxaan ku darsanaynaa radius sida text boxida inuu la mid noqdaan ka rabaa oo 7 pixel okay intaasaan ku darsanay css kadibna waxaan tagaynaa blogi meeshaan ku qorayno koodka halkaan imo waxaan isticmaalaynaa center tag waxaan leenahay h3 ciwaan yaraan rabo inaan sameeyo To get another here with faculty registration qoraalkaasaa ku qoran ana qoraalkaas faculty registration intuu kasoo muuqana xaggaasu kasoo muuqana hoosteeda waxaa noo imaanaya formka qaybta hoose waxaa noo yaalo form actionka formka isla inta waay pageka haddaan ku jirno waxaa la add underscore faculty .php waa fileka haddaan ku dhex jirno methodkiisa always the posta isticmaalaynaa halkan waxaa ku qoran marka input type text waa text boxka faculty name aan ku abuuraynay variable namekeeda waxaan qaadanaynaa fname sidoo kale classkii haddaan soo abuuray oo txt ah waxaan u samaysanaynaa placeholder waxaan leenahay enter faculty name qoraalkaasaa ku jiro faculty name laba br aan samaynaynaa qaybta hoose laba br kadibna input type submit input type submit valuegiisa save faculty qoraalkaasa ku qoran variable namekiisa ereygaa save y kadibna meesha waxaa ku dhammaanay form css ta pagekan oo facultyga intaan ku qornay marka waxaan fiirinaynaa qaabku imaanaya waxaa noo sameeyey scroll uu sameeyey marka scrollkaasaan ka saaraynaa kan wuxuu leeyahay buttonkan galaas oo loo yaqaano submit scrollka si aan ugu saarno css ta oo text boxka aan usoo sameynay scrollka hoosta ku jira waxaa keenaayo boqolkiiba boqolkaa keenayso waxaan ka dhigaynaa 98 aan ka dhigaynaa soo gal an app that you knew was waiting my outlook. waxaan ka soo dhignay 98 kan waa marka waa button oo save ah buttonka save background ka maqan backgroundkiisaan ka soo darsanay brown maadaama farta caddaan waaye ma loo jeeda marka waxaana meesha marka faculty la geliyo college of engineering and saaran computer technology oo kale marka la geliyo save and aan ka rabnaa in database noogu save gareeyo isla markaasna la geeyo pagekan oo viewga kaasoo nagu xiri doonaa oo habtiina seenayo kan marka waxaa laga samayn karaa viewga update asaan raacinayna delete asaan raacinayna okay then meesha formka ku laabo intaan maraynay waxaa noo diyaarsan formkii formka wuxuu qaadanaa marka code oo actionka isla intaan ku diyaarinayna waa dhex dhigaynaa ana formka dhexdiisa aan ku qoranaynaa koodka shaqada qabanayo php taagaan furayn meesha ka furaynaa ugu horeyn waxaan abuuraynaa connection mysqli connect domain name waa localhost username waa root
meeshaan password ma jiro wajida password ma jiro marka database name waxaan ka dhigaynaa aan mysql select underscore db kugu horeyso reference variable oo connectionka oo kona iyo database ka u baxsanayno cmss underscore db ana project name ka folder oo lagu daray ereyga db lagu daray saasaan ka dhigi rabaa intaas waa connection aan leenahay if set waxaa dhaana if set buttonkan oo click aan ku siinayno waxaa ku qoran save haddii qofka save click ku siiyo statementadii executionka lagu samayn lahaa logan dhacdhigayno marka waxaa ugu horeynayo in la abuuro variable loo yaqaano fname oo ka imaanaya text boxka loo yaqaano fname kadibna in la qoro query $sign query waa variable waxaa mysql query wuxuu qaataa connection referencega kadibna waxaan leenahay insert into tableka oo habta lagu shabayo waxaa loo yaqaana faculty waa abuuri doonaa waxaan leenahay values meesha ay dhiga automatic increment waxaan ku baas garaynaynaa null qiimo uma hayno midka labaad waxaan leenahay fname okay intaas way mar intaa waxay save garaynaysaa informationka marka la save gareeyo waxaan isticmaalaynaa waxa loo yaqaano header location meel kala u diraynaa filekan header location waxaan leenahay faculty underscore view.php meeshuu aadi doonaan marka file namekan oo faculty underscore viewga aan tusi doonaa at great view okay waxaan abuuratay database-ka abuuraynaa tabelaan samaynaynaa waa tijaabinaa kadibna video meeshaan ku joojinaa si aan u tijaabino qaybtan waa inaan tagnaa zamtagal waxaan abuurinaysaa local host dheh yani database samaysanaynaa slash zamta dheh waxaan kasii dooranayna php my admin oo ah meesha laga galo database-ka new database aan ka abuuraynaa meesha programka hadda aan qorayo connection waxaan kusoo sheegay database marka cmss underscore db aan kasoo dhigay marka isla kaas aan meeshaan ka abuurmayno meeshaan marka waxaa gelinaysaa database namekeena waa cmss underscore db projectigeena connectionkaas database magacaas le aan kusoo xirnay waan la abuuray tableka ugu horeeya waa faculty tablekaas wuxuu yeelan karaa marka laba column oo fad ah faculty id kasoo qaadanayno iyo column oo fname ah labadaas u qaadana midkan waa barjat sizekiisa ilaa 200 ka dhig kaas waxaan ka dhigaynaa auto increment isla markaas primary key u qaadana waa save garaynayna marka waxaan tijaabinaynaa qaybtaan marka hadda marka save dheh markaan save tahay wuxuu aaday fileka loo yaqaano faculty view marka faculty viewga ma diyaarsana intaan ka ogaanaynaa informationkii noo soo haray in kale way noo soo gashay facultygii hal record ewer kala imaaday
He did it for eating it. That's how long. waxaan ku daraa markale qayb